saaka inteena halka fadhida caafimaad baan la soo kacnay lixaadkii ku dhameystiran baan la soo kacday hadii nicmad kasto ilaahay uu nasiyo la oran lahaa balka warama lacag ka bixiya oo indhaha araga lacag ka bixiya oo dhagaha lacag ka bixiya oo hadalka lacag ka bixiya oo socodka lacag ka bixiya oo gacantana isticmaalaysa lacag ka bixi oo hawada lacag ka bixi oo biyaha macaan lacag ka bixi mobilka gacanta aad ku sidataan hadii rasiid lacagta haday ka dhamaato oo usdaminayaayo maaragtana ku soo dhici maayo kuna soo dhici maayo hadalla ka bixi maayo balka warama hadii la oran lahaa indhahaaga lacag hadaad ku shuban weydo indhahaaga way ka damayaan oo hadalku waa iska ka taagaya oo maqalku uu istaagaya oo socodku uu istaagaya halkee bin aadanku lacag ay ka keenahay balka warama ilaahay rahmadiisa ku socona waa kariim waaga inoo bariyay ilaahay amarkiisu inooga bariyay nabigeenu wakiilha alayhi salatu wassalaam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quta yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها qofka waagu u bariyay buu nabigu alayhi salatu wassalaam isaga reerkiisa iyo magaaladiisa iyo dadkiisa oo nabad qaba iyo jirkiisa oo caafimaad qabo meel ay xanuunaynin iyo quutaliyo maalinka wuxuu cunayayna haysta buu nabigu yiri saddexda nicmadood qofka ku waabarista buu nabigu yiri nicmadii adduunyada taalo dhan qofka waa la siiyo waxba kama hadhin amni buu ku waabaristay caafimaad buu la waabaristay arsaaqad badan oo bilcunaya ma he quutuliyum wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada saddexda nicmadood buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wassalaam qofka waagu ugu bariyay nicmadii adduunyada taalay oo dhan qofka waa la siiyay buu rasuulku yiri wama bikum min ni'matin fa min Allah ayuha al-ikhwa dhageysta walaalayal waxa aan nicmada haysano ayayna siiyay warbal sheeg ayayna siiyay Allah bayna siiyay Allah ilaahay maanta dadku laakiin umay mahadnaqina ogaada afcaasha inaga soo fulaysa iyo hadallada inaga soo baxaya afkeena ka soo baxaya iyo dhaqanka dhalinyaradeena ka muuqda shaakiriin sidii shaakiriinta uma socono nicmada ilaahay kugu nicmeeyay shukrigeeygi sidii la rabay uma socono ogow nin saalixa baa la yiri ayaa arkay nin labada gacmood ku go'an yihiin oo labada lugoodna go'an oo indhahana waxba ka arkaynin oo jirkiisana barase ay ku dhacday hadana ku ducaysanayo oo leh alxamdulillahi alladhi aafani mimma ibtala bihi kathiran min an-nas ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu leeyahay balaayo badan oo adoomihiisa ku dhacday ilaaha aniga iga ilaaliyay ba mahadlabu ninkaas leeyahay bal si fiican u dhageysta walaalayaal tawajjuh ninkaas baa leeyahay labada gacmoodna uu go'an yahay labada lugoodna uu go'an yahay indhana malo aragiisu ma shaqaynayo barasna jirkiisa way ku dhacdo uu cad yahay waxa uu ninkaas uu leeyahay ilaaha waxa ku mahadiyaa balaayo badan oo adoomihiisa ku dhacday aniga iga ilaaliyay allahaasa mahadla buu leeyahay marka ninkii saalix ahaaba ku yiri warniyo adiga balaayada ka maqan maaragtaana ee dadka kale ku dhacday ee adiga ka maqan ilaahay uga mahadnaqaysa waa balaayade waadiga labada gacmood way ka go'an yihiin labadii lugoodna way ka go'an yihiin labadii maaragtaana indhoodna waa kanoo malihid markaasuu yiri waxaan nii sheegi balaayada dadka kale ku dhacday ee aniga iga ilaaliyay man ilaahay nii sheegi dadka kale maanta quluub way leeyihiin laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin oo ilaahay ma xasuustaan oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan carabna way leeyihiin carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan amma aniga ilaahay wuxuu isiiyay qalban shaakiran wa lisaanan dhaakiran ilaahay aniga wuxuu igu deeqay qalbi shaakira ba ilaahay siiyay majmacan dhalinyar buu u badan yahay waa u jeedaa laakiin nicamta ilaahay nasiya maanta ilaahay ma ku adeecnaa bay kula tahay maqalkii ilaahay ma ku adeecday aragii ilaahay ma ku adeecday caafimaadkii ilaahay ma ku adeecday dhalinyarnimadaada ilaahay ma ku adeecday iqtanim khamsan qabla khamsin buu nabigu alayhi salaatu wassalaam shan nicmadood inta aad qabto ee shan kale aysan kugu dhicin buu nabigu leeyahay ka qaniimayso wax ka qabso waa shantee intaad caafimaadka hayso ka faa'iideyso caafimaadka intaanad bukoonin dhalinyarnimada ka faa'iideyso intaanad gaboobin nolosha ka faa'iideyso inta aanad dhimanin ghinada ka faa'iideyso intaanad faqiir noqonin firaaqa ka faa'iideyso intaanad noqonin mashquul shanta nicmadood intaad haysatid dhalinyarnimadu waa nicmad ghinadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad noloshu waa nicmad
firaaqa gacan bannaanidu waa nicmad shantaa nicmadood ilaahay daacadiisa uga faa'iidayso maalin baad nicmadaasi ay gacantaada ka bixiyo ogow caafimaadka maanta aad haysid maalin buu yaraani doonaa yaraan oo la odhan doonaa keli baa xanuunaysa macaan buu yeeshay dhiikar buu yeeshay dhag baa xanuunaysa gaws baa ka xanuunaya maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana maalin bay isdhibi doontaayo ogow ood noqon doontaa 80 jir oo maqalka isdhimi oo aragga isdhimi ood odhan doontaa kan kumuhaabaad odhan doontaa hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlaye markaad tallaabsanaysana tallaabada ayar baad u qaadi doontaa waa goorma waa markuu qofku da'diisu ay wanaato jilco weeyaan haddaad nooshahay maanta faraaqaad nolosha ka faa'iidayso waayo maanta arlada dusheedaad socotaa laakiin barritooda kulligeen waxaan geli doonaa arlada dhexdeeda alam najcal alarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay miyaanan bini aadanka dhulka ku fullaysiin keenna dhintayna dhulkaa unbuu ku dhex jiraayo dhulkaa haya keenna maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda marka dhulka markaad socoto markaa sideed u socon sideed socodka xor ma u tahay may ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa arlada dusheeda marka aad socoto ina aadano kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa ilaahay yidhi haddaad arlada korkeega markaad socoto kibir iyo maaragtaane khuyalaa aad u marto ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid dhulkana ku dilaacin maysid buurahana dharar ma gaadhaysid baa ilaahay yidhi bani aadan baa tahay xaariya kaadilaa oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baa tahee ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay dhulka aayar u dul soco aayar oo muuminiinta waxaa lagu ammaanay aladiina yamshuuna cala alardi hawna arlada korkeega markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar ma ordaan ma degdegaan isma qalqalluuciyaan cid kale kuma daydaan aayar bay u socdaan aayar waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliinta meelahaa fadhida markay la hadlaanna waxay ku yidhaahdaan qaaluu salaama nabad baad naga heshaan annaka nabad baad naga heshaan meel xun fadhiisan maayaan si xun u soconi maayaan wax xun maqli maayaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin maqalkaaga meel xun ha dhigin araggaaga meel xun ha ku eegin qalbigaaga iyo caqligaaga wax xun ha kaga fikirin socodkaaga meel xun ha marin ilaahay baa kula caza wajalla nicamtaasoo dhan hee su'aal baa ka dambaysa su'aal laba nicmadood buu nebigu sheegay maalinka qiyaamaha dadka ugu horraysay la weydiinaya waa laba nicmadood buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam biyaha qabow ee macaaneed cabbaysid iyo jidhkaaga suuradda quruxda badan le ilaahay kugu deeqay waa labada nicmadood ugu horraysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee qofka bini'aadanka qiyaamaha la weydiin doona buu rasuulku yidhi jidhku waa nicmad ilaahay ku siiye u fiirsa xayawaanka bal dameeraha eeg oo ayga eeg oo dhurwaaga eeg oo dibiga eeg oo makhluuqa ilaahay abuuray eeg kulligood way fooraraan adigana bini'aadana kor baa ilaahay ku taago qurux buu ku siiye qurux ilaahay caza wajalla markaa nicmaddaah inaan ku caasin lacagta ilaahay dhaqaalaha ilaahay ku soo gelinaayo meel xun ha ku bixino ogow haddaad meel xun aad ku bixisaa maalinka qiyaamaha su'aal baa ka dambaysa caliy ibni abi taalib baa lagu yidhi adduunyada bal noo sifee caliyow noo sifee markaasuu yidhi adduunyada maxaa niigu sifeeyaa adduunyadu awalkeegu waa tacab aakhirkeeduna waa dhammaad xalaasheedu waa xisaab xaaraanteedu waa ciqaab ninka adduunka dusheeda hanti ilaahay ku siiyey waa la fidneeyey ninka adduunka dhexdeeda ku faqiiroobayna ninkaasina waa ku murugsan yahay bur adduunka dhexdeeda adduunka raaxa ma taalle ogow nololna ma taallo hadday raaxa taalla raaxa aakhiraday taallaa hadday adduunyada raaxa ay taallana dadka ilaahay ku xidhan ee mu'miniinta ayaa qalbigooda ilaahay ku raaxo geliyey bishaaro bushri haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo
dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka. duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada, culumta shareecada, tarbiyada ubadka iyo luuqadda carabiga, qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada. isqoristu waa ay socotaa. Wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada ku